madaxweynaha xisbiga iyo wafdiga ballaaran ee aanan tiradooda iyo magacyadooda koobi karin aanse filayo badankooda inaad wejiyadooda wada garanaysaan oo ka mid yihiin cali waran cadde cabdicasiis samaale wasiir cawil xasan gafaadhi wasiir qabyatire isagoo aan degmada iswa raggi kusoo dhawin lahaa meesha isagoo degmada ya xuseen cabdiwas maan arkay iyo dhammaan mujaahid cali guri baan arkayay wasiirka madaxtooyada isagu wasiirka waa la lahweeyo wasiirkii madaxtooyada suldaan maxamed xasan barre wafdigu aad buu ballaadhan yahay ma soo koobi karo waxaan leeyahay rag badan baan filayaa inay dayaxo cusub tahay maanta waxaan leeyahay ku soo dhawaada dayaxa waa dugsi caan ah oo rag badan oo somaliland caan ka ah ee ka soo baxeen ninkii aanan halkan soo marin waa ku adagtay inuu madaxweyne noqdo marka xiga dad badan baa laga yaabaa in ay la yaabaan maanta halkan goobtan aan joogo waxaan jecelahay marka soo dhaweynta aan ku aan soo dhaafo inaan ku xigsiiyo maxaan ku dhahdaa in maanta oo aynu joogno dayaxo oo aniga deegaankaygii halkii laga doortay meeshii codka ugu badan aan ka helay deegaankaygii dugsigaygii anoo wafdiga kusoo dhaweynaya inaan halkan kaga dhawaaqo inaan ku biiray xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye aan muddo yar oo kooban aan fogeyn aan kala yaro maqnayn oo xisbigaygiia aan wax ka aasaasay aan weligay ku jiray maantana farxad bay ii tahay inaan kusoo dhaweeyo gurigaygii markaan intaa ka imaado anigu doraad baan dalka soo galay shalayna hargeysaan ka soo baxay haddeerna sidaa igu aragtaan baan waftiga kusoo raacay labada arrimood se aan runtii aan jecelahay inaan yaro taabto waxa weeye mid waxa weeyaan waxaan maqlayaa caytan iyo yooyootan iyo aflagaado guddoomiyaha ama musharaxa xisbiga isagoo goobjooga ka soo yeedhaya waxaan leeyahay xisbiyadu waxay ku tartamayaan waa ajande waa ideas waa afkaar waa siyaasad maaha caytan iyo yooyootan iyo shaksi wax laga sheego midna kuma jiro xeerka iyo nidaamka iyo maxaan ku dhahdaa dhaqanka tartanka iyo doorashooyinka mana fiicna wax naxli iyo colaad iyo xumaan dadka ku beeraya ama ku kicinaya in ay cidina ku kaambeyn garayso xisbigan iyo xisbiga kala toonna waxaan leeyahay afka hala dhowrsado anigu qofna ma tilmaamayo laakiin waan maqlayay wax fara badan waxaa kaloo aan runtii aada uga xumaaday markii horena aan la yaabay baaq ka soo baxay xisbiga wadani oo maxkamadda dastuuriga ah eedeynaya ama dhaleecaynaya maxkamadda dastuuriga maaha hay-ad siyaasadeed maaha waa hay-ad garsoor go-aanka ay qaadatayna waa go-aan dastuurka waafaqsan oo sharciya
waayo arrinta loo geeyey maaha arrin competencekeeda ama halkeeda waa arrin baarlamanka maxkamadda dastuuriga ahi had iyo jeer dacwadaha la horgeeyo waa dacwad ku saabsan muran dastuuriya waxayna had iyo jeer labada dhinac kala ah cid kale iyo dowladda dacwad kasta oo dastuuriya dhinaca dowladda ka ah weligeed maxkamadda dastuuriga ah ma qaadi karto dacwad ka dhexaysa laba kooxood ama laba group ama laba qof ka dhexaysa ma qaadi karto waa dacwad dhinac dowladda yahay dhinacna cid dowladda ka camalsa uu yahay laakiin dad ku muransan arrimo iyaga ka dhexeeya ama baarlaman ku muransan arrimaha xorriyoosaadkiisa ah maxkamadda dastuuriga ma qaado waxaan qabaa in ay talo fiican qaadatay oo daristay inuu yahay dacwad dastuuriya in kale dabadeedna ay go-aan saxa ay gaadhay laakiin runtii dee rag badan oo aan wax ku tuunsanaa ama aqoon ku tuunsanaa way joogaan meesha waan la yaabay maalintii hore ay dacwadda u gudbiyeen waxaase kasii yaabay dhaleecaynta waxaase is yidhi malaha xisbigu wuxuu ka qancay doorashada anigu waanan ogahay xaalkiisa dabadeedna inuu hadhow ku murmo waayo maxkamaddu go-aanka kama dambaystaa ta ku dhawaaqaysa weeyaan marka inuu muranka hadda sii bilaabo hadhowto uu keeni doono ayaan des leeyahay malaa weji qiil bay ku ballaysanayaan laakiin waxaan leeyahay institutionska aan siyaasiga ahayn iyaan la siyaasadaynin hala ixtiraamo intaa ayaan kaga baxayaa waxaan leeyahay guddoomiye iyo waftiga ballaaran ee la socda dhammaantiin si kaliya laban halkeedu kusoo dhaweyneynaa waxaan ugu dambeyntii jecelahay inaan halkan uga mahadnaqo